Su'aasha koowaad waa waxaana na soo weydiiyey qof aan Muslim ahayn. Wuxuu ku bilaabay Assalaamu calaykum. Magacayga waa Ibraahim. Wuxuuna ka soo diray New Delhi. Su'aashana waxay tahay markay dadka Islaamka ku soo laabanayaan oo soo galayaan sida Maxamed Cali Kalaay, Sonny Williams iyo Mike Tyson iyo kuwo kale oo badan. Muslimiintana waxay dhahaan Ilaahay ayaa siiyey hidaayada. Taasaana u sababa inay diinta soo galaan. Marka waxaan rabaa inaan ogaado sababta Alle uusan u soo hanuuninin dadka oo dhan una hanuuninayo dadka qaar oo keliya. Walaalka Ibraahim waxa uuna soo weydiiyey su'aal aad u muhiim ah. Alle waxa uu ku leeyahay Qur'aanka dhexdiisa suuradda Yunis nambarka 10aad aayadda 99aad hadduu eebarabi lahaa waxaa rumayn lahaa waxa dhulka ku sugan oo dhan adiga ma waxaa ku qasbaysaa dadka ilaa ay ka noqdaan muuminiin. Alle wuu awoodaa inuu ka dhigo dadka 100% muslimiin. Hadda waxaa adduunku nool 7.75 bilyan oo qof. Alle way u fududahay inuu dadka dhan ka wada dhigo muslimiin iyo muuminiin kaliya wuxuu dhahayaa kun fayakuun. Marka su'aashu waxay tahay sidaan ognahay bilaadanka waa kan ugu fadliga badan waxa uu Alle abuuray oo dhan. Alle waxa uu ku dhahay Qur'aanka qaasatan suuratul mulki ama tabaarak aayadda 2. الذي خلق الموت والحياة. Alle waa kan idin abuuray geerida iyo nolosha si uu idin imtixaano kiina camal fiican. Noloshan waxay imtixaan u tahay nolosha dambe ee aakhiro. Tusaale marka la gaaro waqtiga imtixaanka uu yimaadana imtixaanka horjoogaha imtixaanka ma awoodo inuu ku caawiyo xataa haddii aad samaysid wax qaldan ma awoodo inuu ku baasiyo. Horjoogaha ama ilaaliyaha imtixaanka shaqadiisa waa in uu ilaaliyaa inaadan jebinaynin xeerarka u yaala imtixaanka. Halka macalinka uu awoodo inuu ku siiyo buundooyin sareeyo. Laakiin ma awoodiyo inuu ku baasiyo haddii aad dhacday ama aad waxba soo qorin ama aad jebisay xeerarka u yaala imtixaanka. Waa sidaas oo kale su'aasha Alle waxa uu awoodaa inuu dadka dhan ka wada dhigo muslimiin laakiin markaas muxuu yahay farqiga u dhaxeeyo dhammaan makhluuqaadka Alle subxaanahu wa tacaala marka laga reebo insi iyo jin dhammaantood way adeecaan muxuuna insaanka ugu duwan yahay makhluuqaadka kale midda kale muxuu Alle ugu dhex doortay dadka wax yar waxaa jiro wax uu Alle ku doorto dadka uu hanuuninayo Alle waxa uu ku yiri Qur'aanka qaasatan suuratul Cankabuut aayadda 69aad haddii aad ku dadaashid oo raacdid jidka Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu furi doonaa wadada hidaayada. Taasi macnaheedu waxay tahay qof kasto muslim ha ahaado ama uu ahaan haddii ay ku dadaasho ama uu ku dadaalo jidka Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u furi doonaa wadada hidaayada. Dadka oo dhan hadduu rabo ha noqdo Maxamed Cali Kalaay iyo Mike Tyson ama ha ahaado Cat Stevens. Haddii aad akhrisid taariikhda ka hor intaysan muslimka ahayn waxaa ka mid ah mid ku dadaali jiray tusaale haddii aad maqasheen qisadii Cat Stevens wuxuu ahaa heesaa hadda waxaa loo yaqaanaa Yuusuf Islaam markii ay noloshiisa halis ay gashay waxa uu yiri Allow haddii ay ii badbaadisid noloshayda aniga nafteyda waxaan u hibayn doonaa wadadaada kadibna qof ayaa siiyey kitaabka Qur'aanka waa uu akhristay kadibna waa uu ku soo islaamay sidaa darteed haddii aad ku dadaashid waxa rabtid ahaw masiixi hinduus ama qof aan muslim ahayn haddii aad ku dadaashid inaad u dhawaatid Alle subxaanahu wa tacaala waxaana noqonaysaa qof u dhow Alle subxaanahu wa tacaala waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay waa inaad u socotaa oo ku dadaashaa oona dheedid waxaa rabaa allaha xaqa ah waxaana rabaa in aan raaco dardaarankiisa insha Allah allana waxa uu noqon doonaa mid ku dhow haddii aad akhrisid Qur'aanka waxa ku siyaadaya dhawaasho Alle sidoo kale haddii aad dhageysatid muxaadarooyinka shiiqyada waxa ku siyaadaya dhawaasho Alle laakiin arinta ugu muhiimsan ayaa ah inaad ku dadaashid sidaad ugu dhawaa lahayd Alle insha Allah allana waa uu ku soo hanuunin doonaa waxa rajaynaa inaan ka jawaabay waa ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan haddaa ka heshiin muuqaalkan like saar saan u ogaano inta qof ee danaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah taasina waxa ay noo horseedaysaa in aan sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad daawanaysid channelka Cabdixaliim Cali fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh